الله تعالى وبركاته داوديل waxaad ku soo dhawaataan xeer ilaaliyaha ururka hidaha iyo dhaqanka ee hormuudka gobolka Togdheer ee isla markaasna asagoo tafaasiil ka bixiyay marxaladii ururka hidaha iyo dhaqanka uu soo maray waxaan ku soo dhaweynayaa xeer ilaaliyaha Cabdirasaaq Ali Aadan bismillaah aad iyo aad bad maasantahay yaale ururkan hidaha iyo dhaqanka ee hormuudka Togdheer haddaan tafaasiil kooban ka bixiyo ururkan waxaa la aasaasay 2016 bishii labaad ururkani waa urur hidaha dhaqana wuxuu u qaybsamaa 5 qaybood qaybta koowaad oo ah qaybta jiibta iyo jaanta qaybta labaad oo ah qaybta fanka iyo fanaaniinta qaybta saddexaad oo ah qaybta qalinka iyo qoraalka qaybta afraad oo ah qaybta wacyigelinta iyo qaybta shanaad oo ah qaybta daraamiska iyo filmaanta ururkan qaybta wacyigelinta waxaa dadka ka wacyigelinaa sida mukhaadaraadka tahriibta iyo qabyaaladda saddexda qaybood ururkani waa urur ku baahay gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland gabihaantoodba ururkan waa urur u baahan inuu kor u soo qaado hidaha iyo dhaqankii oo soo nooleeyo Cabdirasaaq waxa tahay adigu xeer ilaaliyaha ururkan waxa aad iga warbixisaa yaa idin gacan qabta ama maartay aad ku tiirsantiin ee maartay aad hoos tagtaan aad bad maasantahay weli maana arag horta runaantii ururkan hidaha iyo dhaqanka ee hormuudka Togdheer cidna gacan qabatay ama cidna taageertay balse insha Allah waan rajeynaynaa in la gacan qabto maxaad ugu baaqaysaa qolyahan maartay ama jaliyada haato ama xukuumadda haato ama maartay cid kasta oo maartay taageerta waliba ururkiina waxa weeye ururka hidaha iyo dhaqanka ayuu ka shaqeeyaa maxaad ugu baaqi lahayd maartay ka faa'iideysan lahayd maanta fursadan aad oran lahayd anala maartay nalaga caawiyo waxaan jeclaan lahaa ama kaga faa'iideysan lahaa barnaamijkan in ururkan hidaha iyo dhaqanka ee hormuudka Togdheer waayo waxa isugu timi dhalinyar aad iyo aad u maskax wacan u heelan sida ay u soo nooleyn lahaayeen dhaqankoodii hooyo waxaan jecelahay ama kula talinayaa bulshada gaar ahaan madaxda ciddii taageerta hidaha iyo dhaqanka in la soo nooleeyo run ahaantii inay hidaha iyo dhaqanka ay u soo jeestaan muhiimad gaarana ay siiyaan Cabdirasaaq su'aasha ugu dambaysa haddaan ku weydiiyo maxay tahay sababta idinku kaliftay inaad ururkan sameysaan hidaha iyo dhaqanka kadib markaanu aragnay barbaarta Soomaaliland iyo dhalinteenu sida ay dhaqanka uga raadayeen markaanu aragnay waxyaabaha aan ku habboonayn nolosha ee dhalinteenu horseed ka yihiin sida balwadaha kala duwan isticmaalka maandooriyaha qaadka badaha ay sida indhala'aanta ugu hoobmeen udubdhaxaadkii qarankeenu bulshada reer Soomaaliland oo ku soo badanaysa magaalooyinka iyo noloshii miyiga oo gabaabsi ama sii dabargo'aysa markaas ayaa nagu dhalatay fikradda ah inaan urur aasaasno hidaha dhaqana ama aanu ka hirgelino gobolkan Togdheer gaar ahaan magaalada Burco ururkan hormuudka Togdheer waxaa loo aasaasay sidii hidaha iyo dhaqanka loogu soo nooleyn lahaa sidii adduunka loo tusi lahaa inaynu leenahay dhaqan fac weyn oo soo jireenah oo ka qayb ahaa ilbaxnimooyinkii iyo horumarkii aadamuhu ku tallaabsaday intii adduunka korkiisa lagu sugnaa kaasoo aynu ka dhaxalnay awoowayaasheen kan waa mid ka mid ah abwaanada ururka abwaan Maxamed Salmaan Kaahin oo ah xubnaha ururka hidaha iyo dhaqanka ee hormuudka Togdheer waxaan kugu soo dhaweynaynaa abwaan mikrofoonka aad baan ugu dhahay walaal mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba adaa mahadsan wax maanta halkan aan ka akhriyi doonaa laba jacburo oo ka hadlaya hablaha iyo inamada dhaqankeena haleeyay qaatayna dhaqankuna ajnabiga ah jacburkan koowaad waxaa magaciisa la yidhaaho dhaleeco waxaana soo baxay bishii 5 2015 jacburkaasi waxa uu ka hadlayaa inamadan dhaqankeena haleeyay inamadan timaha xiranaya inamadan hareeraha xiranaya inamadan maryaha dhuubanaya inamadan habeen oo dhan sida qowriga iyo gidaarada saa u taagan ee dhaqankeena haleeyay la yaabasid jacburkan wuxuu odhanayaa inan yaroo fidhaabo foodeera raaco filinun saxaayo fiishileeye suuqo fiidkuun baxaayo firad kalala haysto dhaqankana ka baydho dharka dhuubanayo dhinacyadana xiiro dhanna aan ku fiicnayn dhalinyarada maantuna dhinac bay u badan yihiin xishood aan aqoono wajilaad ka dheero shaydaan ku xidhano xafladaha ka jaaso xafidaayo heesaha xirfad weynu sii qaba aroosyada caddaanka waalid aan maqlayno waxsan aan aqoono aqoontuna ay ku adag tahay mugdi buu ku sugan yahay allah iyo ka soo saar
halkaasuu kaegyahay jacburkii dhaleeco. waxaan ku xisiin doonaa jacburkii labaad oo magaciisa la yidhaaho sawir gaalo. jacburkan sawir gaalo wuxuu soo baxay 2012 bishii labaad labadeedii maalin khamiisa. waxaanu ka hadlayaa hablahan dhaqankeennii ka baydhay ee dhaqankeennii haleeyey. marka laysu eego hablahan imika joogaya hablaheennii hore kolley aad bay u kala fogyihiin. waxaynu lahayn berigii hore kolley dhaqan bay soomaalidu lahayn meel ku tiirsan oo lagama guraana. sidaas darteed iminka kolley dhaqankeennii waad aragtaan oo iminka dhaqankeennii uu sii dabargo-ayaa. markaan arkay hablihii oo dhaqankeennii haleynaya baan jacburkan yar oo layahaa sawir gaalo oo canaano oo kooban baan u tiriyay hablaha soomaaliyeed. waxau odhanayaa mid yaroo fogaato waxay doonto fahanto xumaantuun fasilayso dhaqanka lela socoto suuqun fadlinayso sawiruun gelayso si xun u fakarayso salaadaan aqoono marna soomin weligeed seejin bay ku maqan tahay saatirow ka soo saar silci bay ku sugan tahay saatirow ka soo saar see saar la direbay kolba ruux ku sugan tahay oo sidan lagu yidhaahdaa sagal iyo daruuriyo ugbaad iyo hilaaciyo ubax laacay baa tahay dumar waad u sidataa dawaad aniga ii tahay dalmar baa ku heli karaa daacad kuu aroosto daaqadaada furi karaa dakhara igu noqonine dawadaydii maad noqon. intaas waxaanu kusoo gebagabeyneynaa waraysigii gaarka ahaa ee mas-uuliyiinta ama abwaanada ururka hidaha iyo dhaqanka ee hormuudka togdheer. abwaanka ninkaa shishe ee tayga xidhan ee timahii hore ee dhaqanka leh waxa weeye abwaan maxamed salibaan kaahin oo ka mid ah abwaanada ururka iyo ka ku-xiga ee cabdirasaaq cali aadan ciro asna ah xeer ilaaliyaha ururka hidaha iyo dhaqanka ee hormuudka togdheer. daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaanu intaasi kusoo koobaynaa barnaamijkii ama waraysigii gaarka ahaa. aad waxaan halkan uga mahad celinayaa sawirqaadaha gaarka ah ee sidiiq xasan waabeeye oo kamarada quruxda badan ay dhihna ku aragtaan ilaa maalin galabta oo dhan la taagnaa. dhammaantiinba aad iyo aad baad u mahadsantihiin.